Somali baan ahay Somali baan ahay diridhaba anaa leh gaarisa anaa leh maylaawinay tahay magacayga oo saddexan waxaa la yidhahdaa cabdimaalik sheekh muuse coldoon waxaa la odhan jiray awowgay qoyskayga oo dhan baa reer coldoon ayaa la yidhaahdaa magacii markii Soomaali badan isbaranay waxa ay igu yeedheen coldoon ayay yaqaaniin inkastoo aniga la yidhaahdo cabdimaalik muuse coldoon marka magaca coldoon awowgay waxaa lay sheegay يعني إن لو جبحية تاريخ هان إن لو جبحية علدان إن علكو وقفك عيدا كعيد كالميساء رادينية سانو فهمي مركب مجاعس وحول لو جبحية وناك حاجة وناك سنبل لو جبحية لو ما بحن علاد يحمان إنه علاد دون لو ما بحن حاجة علاد لو ما بحن سيدا أنو فهمي سيدا اللي يقشر كي تاريخ ديسي بس طبعا مركب عندي مجيء أوجع ها فافو oo ha socdo maadaama isagii uu xaq igu leeyahay oo aan ka soo jeedo marka waxa weeye waxaan dareemayaa coldoon inaan ahay marka sifadii coldoon laftiisa ayaan dareemayaa in naftii coldoon igu jirto awoodii coldoon igu jirto marka waxaan ka fakaraa coldoon yani adigu ha coldoon ayuha waxa laga yaabaa in adigoo kale sidaadoo kale dareenka ku jira waxaad rabtid ummadan inaad wax u sheegtid ummadan inaad ma ereygaad ku tiraahdo inay qaataan oo aad ummadan wax ka bedeshid coldoon yani biyaadii deegaankii ku hareereysna waxa laga yaabaa inuu isaguna sida la mid ah maadaama aan ka soo jeedo awowgay waxaan ku dhashay buuhoodle ayaan ku dhashay meel miyi ayaan ku dhashay hospital kuma dhalan waxa la sheegay taariikhda aan dhashay inay ahayd 1980kii sanad kadib ama 2 sano kadib waxa la keenay yaraantaydii burco ay reerkii soo galeen halkaas ayaan ku barbaaray 1991kii ayaa waxaan tagay dalka Yemen halkaas oo ay ehelkaygu ii kaxeeyeen walaalkay oo iga weyn ayaa maxay barbaariyay aabahay wuxuu dhintay anigoo 7 jir ah 1987kii walaalkay bay barbaariyay walaalkay bay geeyay waxbarasho halkaas ayaan waxbarashadeedii dugsigii hoose dhexe sare jaamacad aan ku bartay Yemen ayaan ku bartay magaalada burco ay waxaan ku soo laabtay 2003 intii aan joogay laba shaqo ugu muhiimsan mid waa macallinimo inaan macallin ahay oo dadka wax bara midina waxa weeye wariyanimo inaan maxay ka hawlgalo warbaahinta oo aan ilaa iyo hadda ka hawlgalo waan banaya bari ka maalin shaqada waan ka tagayaa laakiin waxaan isir bal shaqadaadan iyo codkaagan yani meel fog gaaraya dadka ku anfac oo meel fog yani codkaagu ha gaarsiyo dadkan wax ku tar marka waxaan go'aansaday inaan shaqadan ka shaqeynayo dadka ku kaalmeeyo taas waa qodob labaad ayaa jiray magaaladii aan joogay waxaan noo iman jiray dad baan noo iman jiray masaakiina dad yara waxaan loolan jiray dadkan ha loo sheego dadka ha lagu soo bandhigo oo dadka ha loo sheego xaalkooda marka warbaahintii ila shaqeynaysay saaxiibaday ahaa meelihii ay ka shaqeynayeen ayaa ka joojiyay in dadka masaakiinta warbixino laga diyaariyo marka anigu laakiin man joojin way yimaadaan wariyaashii oo dhan waxay u soo tilmaameen cabdimaalik loo tago dadkii waa batay marka waxay noqotay inay dadkaasi aniga ay noqdeen inaan hawsha sii wado oo aan iraahdo ay igu dhiirigeliyaan inaan wanaaga ka sii shaqeeyo waxa kale oo isaguna markii aan shaqadii ay ballaaratay igu sii dhiirigelinayay markastaba markaan arko shaqooyinkii aan qabtay oo wax tar leh yani dad xanuunsanayay oo caafimaaday dad sabool ahaa oo dhergay dad meel ay seexdaan aan haysan oo guriga yeeshay xamar aadideedi xoribada u hadalkii xamar aadideedi xoribada u hadalkii xabsi baan ku galayo xalkeenu waa ka xabsi baan ku galayo xalkeenu waa ka bandar xeebaheedi xasuustii ku laabnayd bandar xeebaheedi xasuustii ku laabnayd tagitaan xagaageed yaa ku sheegay xaaraan
tegitaan xagaageed yaa ku sheegay xaaraan maxaa laygu xidhayaa xag jir layga dhigayaa ee lay xanibayaa oo lay xaganayaa maxaa laygu xidhayaa xag jir layga dhigayaa ee lay xanibayaa oo lay xaganayaa dadku xoolabaahe xeraadku oodeen dadku xoolabaahe xeraadku oodeen xaq waxaanu leeyahay xag kastaba u kicitimo xaq waxaanu leeyahay xag kastaba u kicitimo waddankayga xoog badan xeelaadu jecelahay waddankayga xoog badan xeelaadu jecelahay laygama xigsanaye xinjir baanu qubayaa laygama xigsanaye xinjir baanu qubayaa maxaa laygu xidhayaa xag jir layga dhigayaa ee lay xanibayaa oo lay xaganayaa taasina wata ilaa hadda xukunkii laygu xukumay uma arkayn in laygu helay wax dembi oo aan ka galay dalka kaliya waxa weeye fariin walaaltinimo ayaan faafinayay oo ah inay Soomaalidu kalgacayl inay ay tahay Soomaalidu colaad kama dhaxayso iyagoo cadow ismaaha Soomaali waxa weeye way isjeceshahay cadowgoodu iyagu maaha laakiin meel kale ayaa cadowga taasi micnaheedu maaha inaan dalkayga ka soo horjeedo ama qarannimada ka soo horjeedo fariinta aan waday waa taas mid kale yani xorriyadda aan ilaahay siiyay aan ku dhashay ayaan sameynayay oo ah يعني أنا يعني دلكي كسو كذا أيه وحن حقول هاي إن مجالك كستو عالم كم إذا تجو إن ضدك عن شعله هاي فرحده وده لسه وده بالدجو إن لا شوي كرو تاسم معناه هذا معها إن دلكي كسو كذا فرت وحيابها مرت مركل الجحرة ضدك كوجو غالجها أيات حسوساني سا يعني لبته وده لا دري ميشل أنا جا لبته إذا بحاجة جوينت يعني درينكا أي دريميسو هو يضي درينكا أي دريميسو حاسكا يقول درينكا الماء يقول دريميو يعني أيان أي يقوين مركا يجا ما نشعلني مرجودان لبعضودان تيدو وحوي أنا جو بحنوار كينا وقت كيسان كرو هدي أنا مدة سيسة عطنا وقت كيسان كرو إن شاء الله لكن يجا أيان ما هي عادو جور ورقبي وحن كل يوم شرينا المرون ما هي إن كيجا يو أهل كيجا بدمانتود aan la kulmo waxaan dareemayay waxay ku jiray qalbigayga waxa ku jiray mar kastaba inaan la kulmi doono oo aan soo bixi doono waxaan filayaa aan isleeyahay waxaan doonayaa ama waxaan filayaa waxaan isleeyahay hal xasuusnaado inaan muddo dheer halisna u galay inaan aanan marnaba ka tanaasulin inaan Soomaalida walaalayo oo ay Soomaalidu maxay walaalo noqoto fariintaas laga yaabaa sanada kadib in maxay loo ogaado inay Soomaalidu maxay aanay cadow isu ahayn sanada kadib maxay arrinka loo ogaado oo la yiraahdo Cabdimalik iyo walaalayntiisii waxbay tartay ama sax bay ahayd imika dad badan maxay si khaldan bay fahansan yihiin oo waxa loo arkay inaan wax kala wado ma wado wax kale dalalkooda iyo deegaamadooda iyo maamulada Soomaalidu kama soo horjeedo kaliya wax wada fariin jacayl inay dadku isticmaalaan waxaan doonayaa in lagu xasuusnaado inaan u halgamay inay Soomaalidu walaalo noqoto maanta waxa weeye siyaasiyiinta Soomaalidu hal shay haday sameeyaan waxyaabo badan ba hagaagay haday dareenka shacabkooda ku shaqeeyaan waxa ay doonayaan shacabka ay qabtaan oo ay dareemaan inay shacabkani soo doortay oo ay u shaqeynayaan dareenkaasi haduu galo horumar baa la gaari lahaa laakiin inta uu siyaasiga Soomaaligu uu ku danaysanayo oo yani xilka uu qabtay يعني كوبا هانتيدا يعني شعب كمساكين تا خرمر لجاري مايو
Soomaali baan ahay Soomaali baan ahay diridhaba anaa lehe gaarisa anaa lehe ma ilaawin inay tahay dhaxalkii awoowahay Soomaali baan ahay Soomaali baan ahay diridhaba anaa lehe gaarisa anaa lehe ma ilaawin inay tahay dhaxalkii awoowahay Soomaaliyo idil Soomaaliyo idil waxumaana uma qabo ana ahayn walaalnimo afku hadal islaamiyo isir baan wadaagna Soomaaliyo idil Soomaaliyo idil waxumaana uma qabo ana ahayn walaalnimo afku hadal islaamiyo isir baan wadaagna isisamaxaan idhi ma jiran adduunyadan dulinta ka wada mida dhulkeennana ilaashada iska jira cadaawaha isisamaxaan idhi ma jiran adduunyadan dulinta ka wada mida dhulkeennana ilaashada iska jira cadaawaha Soomaali baan ahay diridhaba anaa lehe gaarisa anaa lehe ma ilaawin inay tahay dhaxalkii awoowahay Soomaali baan ahay diridhaba anaa lehe gaarisa anaa lehe ma ilaawin inay tahay dhaxalkii awoowahay